asalaamu calaykum. waan ku salaamay daawada meel walba waa joogtid kusoo dhawow qaybtii xigtaa ee sheekada ku saabsan fadeexooyinkii hay-adda sirdoonka ee muusaad. qaybtii hore waxay noo joogtay markii ninkii yahuudda ugu talagashay inay basaas ahaan ay ugu abuuraan gudaha magaalada qaahire ee dalka masar uu xaaskiisii uu la wadaagay shaqada kadib markii uu kasoo degay gudaha dalka masar. qaybtanna waxay ku bilaabanaysaa lootis markii uu xaaskiisii cusbeedda uu sheegay inuu u shaqaynayo hay-adda sirdoonka ee muusaad sidoo kalena masar uu joogo howlgalkii uga adeegaya danaha yahuudda ayaa dhankiisa waxay u sheegtay inay ku garab siin doonto midaasi kana caawin doonto. lootis oo garab ka helaya xaaskiisii cusbeed ayaa waxa uu gudagalay howshii loo igmaday isagoo uu waday muddo 5 bilood ah. 22kii bishii Diseembar sanadkii 1961 ayuu u safray magaalada Hamburg ee dalkaasi Jarmalka ka tirsan waxaana safarkaasi ku weeliyay xaaskiisa Marta. kadibna waxaa Hamburg la sheegay inay uga sii gudbeen magaalada Paris ee dalka Faransiiska iyagoona maalintii koowaad ee sanadkii 1962 magaalada Paris kula kulmay sarkaal sare oo ka tirsan hay'adda sirdoonka ee muusaad oo ay ugu xog warameen macluumaadkii uu muddada 5 bilood uu aruurinayay isagoo oo sidoo kalena amaro cusub la soo siiyay. lootis markasta jaaniskii uu helo wuxuu safar ku aadayay magaalada Paris ee dalka Faransiiska isagoo halkaasi kula kulmay qaar ka mid ah saraakiisha hay'adda sirdoonka ee muusaad xogta uu hayayna halkaasi ugu gudbin jiray. bishii Agoosto sanadkii 1962 dowladda Masar ayaa tijaabisay 2 gantaal oo lagu farsameeyay gudaha dalkeeda waxayna arrintaasi sababtay in lootis si degdeg ah loogu yeero magaalada Paris xilli Israa'iil ay arrintaasi saameyn ku yeelatay. kadibna lootis ayaa la soo siiyay liis dheer oo warqad ay ku qoran tahay waxaana laga rabay arrimaha soo socda. waa tan koowaad ee magacyada dhammaan aqoon-yahanada Jarmalka ee Masar garabka siinaya iyo caawinadooda nooca ay tahay. tan labaad macluumaad kasta oo aqoon-yahanadaasi laga heli karaya iyo waxa noloshooda furaha u ah. tan saddexaad inuu ogaado haddii ay jiraan kuwa leh meelo ay ka jilcan yihiin. tan afaraad halka ay ka shaqeeyaan aqoon-yahanadaasi iyo mid walba wuxuu qabto. midda shanaad oo ugu dambeysana waxay ahayd goobta ay ku yaalaan halka lagu farsameeyo gantaalada Masar iyo diyaaradahooda sidoo kalena halka ay saldhigyadooda ay ku yaalaan iyo sidoo kale waxa ku qarsoon ayaa laga doonaya lootis. lootis ayaa markaasi magaalada Qaahira dib ugu laabtay wuxuuna bilaabay inuu ururiyo xogtii loo xil saaray kadibna uu diray muusaadka isagoo baaritaano aad u dheer sameeyay. Israa'iil markii ay dhankooda ay soo gaareen macluumaadkii ay uga baahinaayeen aqoon-yahanadaasi Jarmalka waxay bilaabeen howlgalladii ay doonayeen inay ku ugaarsadaan. 28kii bishii November sanadkii 1962 ayay howlgalkii koowaad ee ka bilaabeen gudaha dalka Masar iyagoona dhambaal miinaysan u soo diray Hannelore Wendy oo ahayd gabadha gacanyaraha u ahayd ninka lagu magacaabo Pelis oo ah aqoon-yahan mas'uulka ka ahaa mashaariicdii gantaalada ee Masar. qaraxaasina Wendy kuma aysan dhiman balse dhaawac culus ayaa ka soo gaaray. 26kii bishii January sanadkii 1963 mar kale ayaa qarax midkaasi la mid ah oo dhambaal ahaa la soo diray waxaana uu ka dhacay xarunta hubka lagu warshadeeyo. waxaa qaraxaasi dambe ku dhintay 5 ka mid ah shaqaalihii warshada hubka iyagoo ay ku dhaawacmeen 9 kale. bishii Febraayo 14keedii saraakiisha ammaanka ee dowladda Masar ayaa gacanta ku dhigay dhambaal miinaysan oo laga soo diray dalka Jarmalka. wuxuu ahaa dhambaal kuwii hore la mid ah oo marka bashqada la furo qarxayo hase yeeshee ciidamada ammaanka ee dowladda Masar ayaa dhambaalkaani dambe gacanta ku dhigay. waxaa sidoo kale xigtay in laamaha amniga ay qabtaan dhowr dhambaal oo kale kuwaas oo la mid ah oo laga soo diray gudaha dalka Jarmalka. intaasi kuma aysan ekaanin yahuudda waxay fariimahan jabaad leh u direen mid ka mid ah aqoon-yahanadii Masar ee hubka sameynayay iyagoo ugu hanjabay in ay gabadhiisa ay dili doonaan haddii uusan joojin falka uu ku guda jiro. sidoo kalena waxaa xabad lagu dhiftay aqoon-yahan kaleento oo isagana Jarmal booqasho ku joogay. kadib yahuudda ayaa mas'uul kale oo aqoon-yahan Jarmalka ah waxay ka afduubatay magaalada Paris ee dalka Faransiiska xilli booqasho halkaasi uu ku joogay mana jirto wax raad dambe ah oo laga arkay isagoo oona markii dambe la sheegay in gacanta ay ugu jiray kooxdii muusaad. intaasi kadib booliiska dalka Masar ayaa qabtay 2 nin oo midkood uu ahaa Australia halka midka kalena uu ahaa Yahuudi lagu magacaabi jiray Pinchak. waxaa labadaada nin lagu eedeeyay in iyaga ay ka dambeeyeen hanjabaada loo soo diray mid ka mid ah aqoon-yahanada Jarmalka ee farsamada hubka waday. nimankaasi ayaa baaritaano dheeri ah lagu sameeyay waxaana laamaha ammaanka ee dowladda Masar ay ogaadeen in Israa'iil ay ka dambeyso dhambaaladii qaraxyada ahaa dilalka qorsheysan iyo hanjabaada lagu hayo aqoon-yahanada mas'uulka ka ah mashaariicda hubka ee dalka Masar.
laakiin dhammaan arrimahaasi kama aysan hor istaagin inay sii hirgeliyaan mashruucooda iyo istaraatiijiyadii ay ku socdeen. taasi beddelkeedana madaxda sare ee Yuhuudda marnaba kuma aysan faraxsaneen sida ay wax u socdeen. ra-iisul wasaarihii hore ee Yuhuudda ee waqtigaasi oo aad uga caraysnaa qaabkii ay ku socdeen howlgalladii Masar inay ka fuliyaan ay doonayeen, balse ujeedka laga lahaa aan marnaba la gaarin, ayaa waxaa dhacday in isaga iyo madaxii sirdoonka ee Mossad Uzra Harel ay isku dhaceen, waxaana isku dhacaasi uu sababay in uu iscasilay madaxii sirdoonka ee Mossad ee lagu magacaabaya Uzra Harel. beddelkiisa waxaa hawshii galay Meir Amit. sidoo kalena muddo kadibna waxaa iscasilay ra-iisul wasaarihii Yuhuudda Ben Gurion, waxaana xilka la wareegay Levi Ashkol. nimankii ayaa baaritaano dheeri ah lagu sameeyey, waxaana laamaha ammaanka ee dowladda Masar ay ogaadeen in Israa'iil ay ka dambayso dhambaaladii qaraxyada dilalkii qorshaysneed. dhanka Masarna markii ay fahmeen oo ay ogaadeen shirqoolka Yuhuudda, waxay awoodoodii dhamme isugu geeyeen sidii ay u ilaalin lahaayeen mashruucooda, iyagoona muhiimadda koowaad siiyey inay ilaaliyaan mas-uuliyiinta iyo aqoon-yahanada mas-uulka ka ahaa mashaariicdaasi. waxaa sidoo kale baaris iyo dabagal lagu waday dhammaan wixii basaasiin ahaa oo cadowga u adeegaya oo markaasi tuhun uu soo galay. Yuhuuddii weerar kasta iyo iskuday kasta oo ay ku doonayeen inay ku qarbudaan mashruuca gantaalada ee Masar ama ay ku joojiyaan, fashil ayuu ku dhammaanayay, waxaana weerarkoodii naflacaarinimada ahaa halkoodii ay kasii wadeen. balse taasi beddelkeedii laamaha ammaanka ee dowladda Masar waxay ahaayeen kuwo dabagal xoogan ku haya, gaar ahaana dhambaalada miinaysan iyo halka laga soo diro. dilaa kastaa si kasta uu xariif u yahay waa midkii qalada ku dhacay ee haddii ragga ammaanka ka howlgala ay soo jeedaan si fudud ayay ku qaban karaan dilaagaasi, waxaana taasi la mid ah Lootiis oo ugu dambeyntii qalad lagu fahmay kuna dhacay, taasi oo sababtay in laamaha ammaanka ee dowladda Masar gurigiisa ay ugu tagaan, islamarkaana tuh weyn iyaga oo qaba ay gacanta ay ku soo dhigeen. Lootiis markii gacanta lagu soo dhigay waxaa si degdeg ah u qirtay inuu yahay jaajuus u shaqeeya Yuhuudda, balse wuxuu ku adkaystay inuusan Yuhuud ahayn oo asalkiisa Jarmal uu yahay. waxaana maxkamadda dowladda Masar 22kii bishii February sanadkii 1965 Lootiis ay ku xukuntay xabsi daayin iyo sidoo kale in lagu qabto howlaha iyo shaqooyinka adag. Lootiis xaaskiisii Martana iyadana maxkamadda waxay ku xukuntay 3 sano oo xariga maadaama jaajuus caawiye u ahayd, balse bishii February sanadkii 1968 markii 3 sano ee xabsiga ay ku jireen ayaa labadoodii la sii daayay, waxaana lagu bedeshay maxaabiis kale oo Yuhuudda ay haysatay. haddaba qorshihii lagu qabtay Lootiis iyo fadeexadii ka dhalatay oo kooban ayaan halkan ku soo koobaynaa. Yuhuudda waxay soo tababartay soona diyaarisay Lootiis si howlgal ugu fuliyo Masar. qorshaha ugu weyn ee loo soo diray wuxuu ahaa inuu fashiliyo mashaariicda gantaalada iyo diyaaradaha dagaalka ee dowladda Masar. Lootiis in muddo ayuu ku sugnaa magaalada Qaahira si uu qorshaha u fuliyo, balse wuu fashilmay. waxaa kaloo fashilmay qorshihii lagu doonayay in lagu qaarijiyo aqoon-yahanadii Jarmalka ee Masar hubka u farsameynayay. laamaha ammaanka ee Masar waxay gacanta ku dhigeen Lootiis oo aan mashruucii loo soo diray marnaba ku guuleysan. Israa'iil dhexdeedana waxaa ka dhexdhacay isqabqabsi iyo buuq la xiriira fashilka Mossad iyo sidoo kale inuu guuldareystay qorshihii la doonayay in mashaariicda Masar lagu wiiqo. wuxuuna isqabqabsigaasi ugu dambeyntii sababay inay iscasilaan taliyihii sirdoonka iyo ra-iisul wasaarihii xilligaasi. sidaasi awgeed ujeedka iyo hadafkii laga lahaa howlgalkii Lootiis loogu soo daray gebi ahaanba wuu fashilmay. taasi beddelkeedana gacanta ayaa lagu dhigay, markii dambena maxaabiis ayaa lagu bedeshay. markaana aan eegno fadeexadii saddexaad, indhaha Masar oo kusii jeeda gudaha Dimona. taariikhda marka dib loo eego, Yuhuudda dhowr jeer ayay kiristaanka reer Yurub ay kala kulmeen isirsifeen iyo baabi'in intaba laga soo bilaabo waqtigii Baktunasar. sidoo kalena xasuuqii Roomaanka ay u geysteen kuwaas uu hogaaminayay Imberadorkii Titus. ha ka iloobin qaysarkii Ruushka oo iyagana dhankooda xasuuq u geystay Yuhuudda, halkaasi ku sugnaa ilaa laga soo gaaray Hitlerkii Jarmalka, kaas oo ku caanbaxay nacaybkii Yuhuudda uu u qabay, isagoona si xun u laayay muddadii uu socday dagaalkii labaad ee adduunka. Yuhuuddu waxay sheegteen in xasuuqaasi si daran loogu laayay, gaar ahaana midkii iyaga Hitler uu u geystay, waxaana ay sheegeen in laga laayay 8 milyan oo dadkooda ka mid ah. haddaba Yuhuudda iyagoo arrimahaasi maanka ku haya kadib markii gacanta ay ku dhigeen, sidoo kalena xoog ay ku qabsadeen dhulkii Falastiiniyiinta, ihtimaamkoodii ama ahmiyadoodii koowaad waxay siiyeen sidii ay ku samaysan lahaayeen hub iyo ciidan aad u xoogan, kaas oo qayb ka yahay hubka waxgumaada ee nuclearka.
waxayna aad ugu dadaaleen inay ishubeeyaan, sidoo kalena waddo kasta ay u maraan qaabkii ay isku hubeyn lahaayeen, iyagoo aad u doonayay inay samaystaan hubka waxgumaada ee nuclear-ka, kaasi oo horey u burburiya boqortooyadii xoogga weyneed ee Japan, kuwaas oo magaalooyinka ugu caansan ee Hiroshima iyo Nagasaki uu Maraykanka gantaalada nuclear-ka la dhacay, arrintaas oo soo gabagabaysay inuu dhammaado dagaalkii labaad ee dunida. Israa'iil waxay aad ugu dadaashay markaana inay ishubeeyaan si ay mar kale u soo laabtaan oo aysan ugu soo laaban dhankoodana wixii taariikh hore ugu dhacay oo dib kale aan loo xasuuqin, waana sababta uu David Gurion uu aadka ugu dadaalay in Israa'iil ay samaysato hubka waxgumaada ee nuclear-ka, iyagoona samaysashadiisa waddo kasta ay u mareen. David Ben Gurion oo ra'iisul wasaare u ahaa Yahuudda waqtigii ay samaysanayeen hubka nuclear-ka waxaa halheys u ahayd cidna nagama dambayn doonto, kaasi oo loola jeeda haddii mar kale uu qarxo dagaal la mid ah kii labaad ee adduunka, kadibna hubka nuclear-ka la isku gumaado in Israa'iil cidna aysan u aabayeeli doonin, gaar ahaanna haddii lasoo weeraro oo ay dhankooda wax gumaadi doonaan iyaga oo adeegsanaya hubka halista badan ee nuclear-ka, kaas oo gacantooda ku jiray. 15 bishii May sanadkii 1948 markii lagu dhawaaqay dowladda Israa'iil la yiraahdo inay jirto, 3 bil kadibna Yahuudda waxay bilaabeen samaysashada hubka nuclear-ka. halka ay noo joogtay qaybtan oo ka mid ah fadeexooyinkii hay'adda sirdoonka ee Mossad. saaxiibka Cabdiraxmaan Anteena ayaa tarjumay, anigoo Marcada ayaa kula socodsiinaya. Marcada TV ayaad ka daawanaysaan qaybtan qaybta xigta intaan ku kulmi doona nabadgelyo.